waxaan uu bateeyaba gudubirsi oo da soo jabiyay nimankii gudubirsi oo hubkii qaatay 48 saacna u qabtay Muuse Juudaan iyo argagixisadii SNM maradad xaqiiqa ah mustan oo calanka tawxiidkii diidan annaguna badoonano inaan halkuu jooga ugu tagno oo wallaahiya oo bilaahiya oo tallaahiya sidii haramood oo hal lagu dilo gudubirsi waa kacay bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina muhammad salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh kulanti waano wanaagsan dhamaan umada Soomaaliyeed goob kasta iyo goor kasta joogtaan waa barnaamijkeeni iftiiminta oo aynu maanta isku dul taagayno reerkii gudubirsi loo jiray oo hubkii gurtay iyo Muuse Juudaan oo gurigii Morgan saaka lama aragti iyo lama maqashi waagu ugu bariyay wuxuu yiraahdo ruuxani waa dad iska masaakiina waa hindi maarad iga sheeganaysan gudubirsi maxay ila joogaan waxa uu yiraahdaba saaka waagi baa ku bariyay barnaamijkaas isdul taagayna magaaladii Boorama ahayd iyo gobolkii Awdal oo mid yar iyo mid weyn ba hubka la gurtay gunnimada waa laga diriraa gunnimo waa laga diriraa xaasha lilay wixii xun waa laga xishoodaa buu yiri ninkii jiray dadigaansho waa ceeb inaad dabagsataa meel ee dhashaaday sugtaa xaajadaad dowrata abid in dhirbaaxa quudee dugsaday dhaqayadeed maaliya dharkii gudubirsi loo jiray ee maalin kasta wuxuu yiri alam tara iyo liilaaf soo dhaaf libaaxi wixii ugu dambeeyay ee nimanka lagu tijaabiyay ahayd xildhibaankii qura ee ay lahaayeen maxamed abib inta dhagta saal loo qabtay eegay god madow lagu riday waliba cay loogu sii daray oo habeen iyo maalin media la fadhiyo oo gudubirsiye maxay sameyn karaan oo waa samaroone maxay ka hadli karaan oo ma yaga hadli karaan oo wallahi bilaa gacan biraan ku dhigaynaa waxa li Soomaalidu ku maamaada aybaari afhumo colaadna wax kaaga ma tartan nabadna way ka kaxaysaa Muuse Juudaan iyo cabaadweynta guriga Morgan fadhida eegay laba dhaqan oo aan dadka islaamka ay lahayn bay leeyihiin koow waa afhumo iyo dulmi labadaas qof islaama oo ashahaata oo muslim ah oo ilaahay yaqaana oo xalaal ku dhashay waa wax aanu samayn inaad qof walaalkaayo dulmidid oo dulmi u geysatid diinta islaamka ka xarimtay oo nabigeena kaleey salaatu wasalaam ba inooga digay oo diinteena inaga reebtay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ba aayaadkiisa iyo quraankiisa inoogu sheegay inaad qof walaalkaaya dulmi ee darro la doonan wala deegay dulmi iyo darro inaad qof walaalkaaya la doonan Muuse Juudaan marka iyo kooxdan SNM cabaadweynta ee beenta iyo propagandada iyo ruwaayada 32 sano umada Soomaaliyeed ugu sheekeysay dhalinyarada Soomaaliyeed ee waqooyi gobolada waqooyi galbeed deganeyd mustaqbalkoodii seejisay bala deegay ugu sheekeeyeen been iyo propaganda ee waxaan jirin inta maxaa u dheer warba qof baa ku dila oo ku xumeeya oo dulmi kugu sameeya oo afkiisa ka haysta inta lagu dilo oo lagu dhibaateeyo inta dadka dulmi la doontaan bay wali cay ugu sidaraan teer iyo maalintii waxa SNM waxa weeye calan castaas argagixisada ay dheen Soomaali waa ka go'ayna ilaa iyo maalinka maanta reerka gudubirsi halka degan nimankaas dulmi iyo darro ku hayo dulmi iyo darro Muuse buuxi ku hayo oo Muuse Juudaan ku hayo maalinkii uu soo galay oo jabhada ahaana wuxuu ka bilaabay dadkii gudubirsi awdal deganaa buu laayay oo xabad la dhacay oo madaxa ka wada toogtay oo gabdhihii la kufsaday oo kun qof baa kursi wax laga talaabsaday bishii labaad 14keedii 1992 kun qof buu ka talaabsaday intaasoo gabdhood buu kufsaday iyaga qirsan oo dhibaatada inay geysteen SNMT argagixisada ay qirsan yihiin ilaa iyo maanta oo xildhibaanadooda xirayo oo gabdhahoodii baacsanayo oo qof allaaliyo qofkii gudubirsi ee dhaqaaqa ee wuxuun waxa weeye meel uu boor ka kiciya uu leeyahay hal qabto ileen qabiil qaran ma noqdo war ileen qof qabiyaaladaysta oo xanuun ah oo liita oo dadnimo lahayn oo diin lahayn oo aqoon lahayn oo aan garasho lahayn ilaahay hadduu wax kuugu daro gacanta ku geliyo waa musiibo waa laga ducaystaa qof jaahil ah inuu waxa weeye tala ku qabto nimankaasna waa gudubirsi waa niman goba waa niman dixiina waa niman nasaba waa niman aqoon leh waa niman yaqaana adduunna waxa yaala aakhirana waxa jira garanay laakiin nin aan garanayn adduunna wuxuu yahay oo adduun ii koow yahay oo ciil qala aakhirana aan waxba uga horeyn
eegay oo dee camalkiisii teer iyo maalinku geed ka leexday wax xun mooyaane wax san qabani meel kuma wada noolaan karaan sidaa darteed gudubursi maanta wuxuu guddoonsaday oo isku raacay in ay dulmiga iska qaadaan oo iska celiyaan oo qofkooda dhintaano ehlu janno yahay kii ayagu dilaana naarta u galayo oo ay jihaad tahay oo ay naftooda iyo maalkooda iyo sharafkooda iyo karaamadooda iyo cisigooda ay ilaashanayaan bal reerkii gudubursi ah hubkii intani waa hordhac weeye laakiin gurmadka socda rasaasta socota dhaqaalaha la bixinayo ciidanka ilaa iyo dila ilaa iyo Soomaali galbeed teer iyo waxaan ku iri meesha la yiraahdo Gabiley ilaa iyo Awdal iyo Baki tan iyo Lowyacado ilaa iyo Saylac ka baxaya subaxa saaka aqligina diidayo reerkii gudubursi meel ay joogeenba macal gabdhihii raggii bay raashinkii biyi ka daba qaadayaan waa la isku raacay baan ku iri dheglaas saragle baalidu waxay ku mahmaadaa haddii malag dhawaaqaya miidaama dhagamale Muuse Juudaan in guriga loogu daadanayaan malaynaya in waxa weeye SSC iyo jamaahiirta in gudubursi ugu horeynayo baan u malaynayaa oo guriga Morgan gali doonaan waa kuwan odayaashii iyo saraakiishii waxa weeye han noolaatadii u soo shaqeeyay oo hubkoodii gurtay oo hadlaya aradad xaqiiqa aamustan oo calankii tawxiidkii diideen annaguna ma doonano waxaan sharciga waafaqsanay buu ku xidhayay wuu iska haystaa talagal markuu saa ku yahay waxaan anna talagal ku nahay inaan halkuu jooga ugu tagno oo wallaahiya oo bilaahiya oo tallaahiya waxaan u qabanaynaa hadduu ku soo dayn waayo 27 saacadood gudahood ninkaasi haadii buu maray hadduu soo dayn waayo buu yiri oo dambe ay dhacdo buu yiri dulmiga iyo adab darrada inta laga nolola yimaado oo Maxamed Abiib oo xildhibaan ah eegay gardarro iyo kibir inta Mandheera lagu gastay dhabi la dhacayo walaa loo wada noolaanay xaq bayna u leeyihiin ilaahay baa ina dilay xaq bay u leeyihiin adduunyada ma jirto reer dul saaran oo waxa weeye qof allaale iyo qofkii war dadku waa dad adiga kula mid ah war waad sagaal baad ku dhaatay sagaal bay ku dhasheen war waxaad shalay diidayseen iidoorow shalay waxaad diidayseen soo maaha ee leedinku kiciyay siyaad barayna laay idinkoo ciidanka ay ka mid ah oo madaxweyne ku-xigeenkii Soomaaliya waxa weeye in Cali Abubakar uu waxa weeye nin isaaqayay oo ilaa beerka beelay saraakiisha ugu badan aad leedihiin oo ciidanka ku jirtaan oo wasiiradii waxa weeye Soomaaliya waxa weeye arrimo dibadeed iyo arrimo gudaheed barnaamij isaaqa ahaayeen wixii shalay Muuse Juudaan iyo ina kaahingeeya saaxiiban ay dadka ku kicinayeen ee kibista gabdhaha la dubayeen soo been iyo propaganda iyo isaaq baa la dulmiyay maaha tiibaad maanta wadaan oo reer idin la mid ah oo inta Soomaaliya ka degan oo sidaad qabiil u tihiin qabiil u ah baad shiikhoodii iyo shariifkoodii iyo waxgaradkoodii iyo aqoonyahankoodii iyo xildhibaankoodii iyo dhalinyaradoodii dhammaanba waxaad damcadeen inaad tirtirtaan oo taadaan waxba ma tiidin oo qof allaaliyo qofkii yiraahdo war waxaasaan doonaynaa taad warmaado gudubursiya baa hadlay warmaado samarona baa hadlay cayda afxumada gefka war dad idinla dhaqan oo idinla degaan oo dalka idinla leh eegay oo waxa weeye wanaag iyo walaalnimo iyo tolnimo iyo ehelnimo idinla degan حتى علماء باشا إساق موسى جودان وقبان ويد وردت كذا ضرر كلات شالي بان وغينون من هرتي halka joogo laandheera ah eegay isku qaado inta nusnii war waxa kani niyow bal uqdadan inay ka baxdo siyaad baraan laayay marxaan baan xasuuqay daarood baan laayay talaay war waxani bal inay ka baxaan war bal noo taliya oo anaga taladii anaga idin diibanay bal waxa weey hore u socday idin oo si walba waa idin dhiqi weyn وأرجعيسوي أسأنا عباد ويني وإذن دقي ويني وحول بوي سي والبوي ديك الله سومالي ما كجوينا وانا ترادين وعن هي صعدة صال هرتيجا أوتالية دجانا ده كتب بل إلتها إن عقدته كبحضوش ده ورد وروحي ده حوي دعينا وادعين dadkii aashalay ka cabanaysan maanta waa kuwan kula socdo oo deegaanadoodii ka talinaysidood dadkoodii leynaysidood dhibaataynaysidood waxa weeye Soomaali oo dhan aatir waa ka go'aya Soomaali aanay ciid qori ka soo daba tuurin war hadda isku xishoodo waxaan waa ceebe war bal wax eli
ismaad oran weli waa qunuudays muuse juudaano adigoo sool iyo sanaag ba joogo ciidankaaga joogaano baradii catiltayd ka taagan tahay ba haddana weli ciil qabtay oo dadkii adiga ku ogolaa lahayd awooyaashina ribaax ma jeerteeniya hartiyo daarood waliga ma ka adka oo la lahaa bal laga daayo war iska daayo la markaanu ku aragnay inaad daayeer inan gumeed ah oo qoti ah eegay oo wax allaale iyo wax ka soo naasacadi inaanay jirin xanuunkani aanu ka baxayn baanu ku talagalnay toos inaanu isu ka baraacino gebigaagaba aakhira ku dirnaba oo wax allaale iyo si aad xitaa dib ugu soo kaban naf iyo maal waxaad haysato oo dhan aan maalin cad ka furno sidii baanu la yeelay adiga maanta bayhoofa oo wax allaale maanta gudubbiirsi hadduu soo ruqaansado wax badan baa nimanka gudubbiirsi ku yiri war waxa iska celiya wasakh weeye waa inan gumeedka waa la dhirbaaxay iska celiyaan saaka hadday kugu soo ruqaansadaan inta haddeer waxa weeye boorama dusheeda joogta saaka hadday kugu soo dhaaqdo iska celin kartid hal qori gudubbiirsiyow oo idinku soo fiiqo ma haysta ninkaas hal qori oo idinku soo fiiqo dhishiiku haysta dhishiikana waa iibsan kartaan dhishiiku haysta dhishiikana waad iibsan kartaan baradeegi qori kale oo maanta madfaca oo idinku soo ridi karaa ma jiro maanta idinka ka dhaqaala badan 32 sano gudubbiirsi dagaal ma gelin gudubbiirsi 32 sano Soomaali dagaal ku jirta dagaal ma gelin dhaqaalana maanta waad haysataan ciidanna waad haysataan eege oo inta waa tarmayso xabadi qof idin kama dilin baladeegi intii yarayde dhowrkii qof ee gooja cadala keenay mooyaan qof gudubbiirsoodi kama dhiban maanta chance baad haysataan in gumeedka iska celiya qotiga ah annaga soo koobnay war waxaan annaga soo aragnay baan ku 32 sanadood annaga aftada ka wadnay wax allaale wuxuu wanaag ku leeyahay ma jirtaan ku dhag iyo dhaban markaad ku dhufatid buu miirsanaya waa inan gumeed weeye inan gumeedkuna adduunna wax kuma leh aakhirana wax kuma leh sababtoo qofku haddaanu ilaahay aqoon oo ilaahay ka cabsan oo rabbi ka xishoon oo binaadamka nabad gelin oo waxa uu dhiiga binaadamka wax xun u aqoon waa inan gumeed aakhirana wax kuma leh adduunna wax kuma leh gudubbiirsiyo allahiin hadduu allahay dad islaamatiin maanta chance baad hesheen fursad baad haysataan ciidan waad haysataan wax allaali waxaanu idin tari karnaa waa idin taraynaa ciidan iyo calaf waxaanu idin tari karnaa waa idin taraynaa laakiin gudnimaha qaadanina gudubbiirsina waxaan leeyahay khaasatan gabdhaha gudubbiirsi gabdhow may maqlaysaan gabdhaha gudubbiirsi baan la hadlayaa rag dumar baa isdhaafshay ciidanka halkaa joogay jabhadda ah garabkooda istaaga oo waxa weeye ciidanka wax allaale iyo waxa aad ogeydeen ee waxa weeye soo lagaga dagaalamayay eegay gabdhaha harti eegay khaasatan gabdhaha dhulbahante eegay ayaa waxa weeye dhexda u xirtay mid kibis dubta mid dahabkeeda iibisa mid waxa weeye rasaasta gadda mid ciidanka gubaabisa gabdhaha gudubbiirsiyo ciidankaas idinka meesha joogaan meesha iska qaada oo inan gumeedka waxa weeye qotiga ah eegay ee maalin walba idin kufsanaya idin laynaya idin xasuuqaya shala u dambeystay Safiyatu wuxuu ku sameeyay waad ogeydin wixii Safiyatu ku dhacay oo in Habiib ku dhacay baa dhalinyaradii ku dhacsatay maanta ciidanka garab istaagin annaguna diyaar baanu idinahay waanu idin garab galaynaa waanu idin taageersannahay ilaahayna waxaan idin ka baryaynaa ilaahay guushaydu siiyo xaq baad ku taagantiin waxa weeye dad islaam ah baatiin dulmi baa la idinku sameeyay dulmiga inaad ka dagaalantaan ilaahay baa idin jiday annaguna diyaar baanu idinahay waanu idin garab taagannahay wax allaale waxaanu tari karnaa waa idin taraynaa baa kuri ha ka baqina baa kuri waxaan ciidanna ma haysto hubna ma hayste iska celiya oo horta boorama ka saara oo horgalada boorama jooga iyo waxa weeye iyo awdal oo dhan horta iska soo saaro gudubbiirsiga maanta guushi maanta idin booqata maanta haddaad halka ku haysan in Habiibna waa la soo daynayaa Safiyatu dambe iyo gabar dambe oo gudubbiirsiga la dulmi maayo deegaankiina idinka xor u noqonayo maamulkiina waa dhisanaysaa insha Allah war khayr iyo baraka idin jannay war barnaamijka u hiliya war gudubbiirsi u hiliya barnaamijkaasi share garay oo waxa weeye iskaarsiya war sanina baadino salaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh